kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono ciyaaraha Yurub haddaad janaalka aarka sports ku cusub tahay subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladan soo socda muuqaalkan shirgareeya si ay u soo biiraan saaxiibada ciyaaraha ku tixan mahadsanidin soo dhawaada mar kale waxaan baqaadi doonaa barnaamijkeena xulalka Faransa iyo Belgium ayaa caawa isla ciyaari doono semifinaalka UEFA Nation League ciyaarta caawa labada xulood ee wada ciyaari doonaan ayaa la daawan doonaa saacadu markay ay tahay 3:45 daqiiqo habeenimo xilliga Geeska Afrika kii soo badiyay labadaas xulood Belgium iyo Faransiiska wuxuu finaalka la ciyaari doonaan xulka Spain oo xalay 2-1 kaga badiyay xulka Italia xilliga Barcelona Gavi ayaa saftay kulankiisa ugu horeeyay kadib markii uu saftay kulankii xalay ee wada ciyaareen xulalka Spain iyo Italia kulan ka tirsan UEFA Nation League Gavi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'yaraa ee abad ciyaara xulka qaranka Spain asagoo jiro 12 sano iyo 62 maalmood Gavi ayaa xalay soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan ay ku ila dhaceen taageerayaasha ciyaarta xalay daabanayay markan waxaan fiiro doonaa wararka suuqa iibsiga maanta oo khamiiska cusub saaxiibayaal hadda janaalka aarka sports ku cusub tahay subscribe saaro muuqaalkan shirgaray Manchester United ayaa laga yaabaa inay iibiso mid ka mid ah xidigaheeda Nemanja Matic ama Don van de Beek si uu la soo saxato xidiga khadka dhexe ee kooxda West Ham United Daniel Reyes waxaana sidaas daabacday shabakada Express Borussia Dortmund ayaa go'aansatay inay kooxdeeda ku sii haysato Erling Bernard Haaland ilaa sanadka 2023 waxaana sidaas qortay Sports Bill ka soo baxdo horyaalka Jarmalka Juventus ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabyada laga soo gudbinayo 30 jirka Aaron Ramsey waxaana sidaas qortay Mail Barcelona ayaa suuqa January dhigaysa difaaciga dhexe Samuel Umtiti kaasoo jira 27 sano ayaana wali hal daqiiqo ilaa haatan xilciyaareedkan horyaalka La Liga ka ciyaarin waxaana sidaas qortay Mundo Deportivo kooxaha xifaaladka ka dhaxeeyo AC Milan iyo Inter Milan ayaa ku looloomi doono 22 jirka waryaanka ee kooxda River Plate Julian Alvarez waxaana sidaas qortay Calcio Mercato saaxiibayaal waxaad fikirkiina ka soo dhiibi kartaan kulanka caawa ee wada ciyaari doonaan Faransa iyo Belgium xulkee ayaa u rajeynaysa inay finaalka la ciyaaraan xulka Spain iyo qodobadan ku soo qaadeen hal iyo labo ayaad fikirkaada inoogu soo reebi kartaa dhanka commentiga waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.